tababarkan oo socday muddo 3 maalin ayaa loo qabtay wakiilo ka socday bahda garsoorka dalka iyadoo uu ku saabsanaa legal aid-ka ama adeega kaalmo sharciyeedka dalka oo ay soo diyaarisay wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. tababarkan oo bixinayay qabiir dhanka legal aid-ka oo u dhashay dalka Koonfurta Afrika ayaa waxaa ka qayb galay wakiilo ka socday dowlad goboleedyada dalka, gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe. waxaana maalmaha uu socdo diiradda lagu saaray barnaamijka kaalmo sharciyeedka ee muddooyinkii dambe dowladda Soomaaliya ay ku dadaalaysay in la hirgeliyo. wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Xaaji ayaa soo xiray tababarka, waxaana ugu horreyntii warbixin ka dhageystay khubarada bixinaysay tababarkani oo iyagu sharaxaad ka siiyey hawsha ay qabteen. wasiirka cadaaladda ayaa carabka ku dhuftay in wasaaradda ay ka go'an tahay in adeegan oo muhiim u ah qof walba oo muwaadin ah la hirgeliyo, isagoo howlwadeennada ka faa'iidaystay ama ka qayb galay barnaamijkani kula dardaarmay inay muujiyaan cilmiga ay faa'iidaysteen. aad baan ugu faraxsanahay kasoo qayb qaadashadiina. wasaaradda cadaaladda diyaar bay idin tahay in la fuliyo himiladaas madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay hormuudka ka yihiin oo aan hadda u sameynay tubo oo tubta ugu muhiimsan ay tahay tubta amniga iyo cadaaladda oo run ahaantii wiig kasta shirkeeda aan galno. waxaan leenahay halbeegadaas waxaa ka mid ah in legal aid-ga aan sharcigiisna aan diyaarino, isla markaasna boorkii looga tirigalayna aan abuurno. marka waxaan leeyahay bahda cadaalad guud ahaan heer federaal iyo heer dowlad goboleedba dalka aad iyo aad baa looga baahan yahay in la helo cadaalad iyo garsoor hufan. waxaana ku dadaalaynaa insha allahu in shuruucdii dalku uu lahaa kuwii hadda loo baahan yahay legal aid-gan uu ka mid yahayna aan diyaarino wixii wasaaradda ay leedahay, wixii hore u jiray shuruucdii horena ay ka mid yihiin penal code iyo civil xeerka nidaamka garsoorka uu ka mid yahay in ayagana dib u eegis ku sameyno. marka wasaaradda cadaaladda aad bay u dadaalhaysa, laakiin waxaan ka codsanayaa bahda cadaaladda inay wada shaqayn dhab ah ay galaan. Axmed Cali Kaahiye, warbaahinta qaranka, Muqdisho.